بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا مركلة وصاحبكم عمر علي حسن. 10 لبعض برشة كمبيوتر كا. وعن هرؤوس وقاضني واحد كمبيوتر وياه. وأنتم حقاً دونا 10 لبعض use of computer. أما استعمال كمبيوتر كا. استعمال محا كمبيوتر واستعمالنا بحيث إنه فائدينيا. The use of computer. Although inkastoo the computer is an electronic device uu yahay qalab koronto ku shaqeeya inkastoo computerku uu yahay qalab koronto ku shaqeeya it has wax uu leeyahay very important role wax uu door muhiim ah ku leeyahay in our daily life nolosheena caadiga ah ma nolol maalmeedkeena. With the help of computer caawimaad computerka we can do waxaan ku samaysan karnaa various tasks shaqooyin kala duwan ayaad computerka ku dhex qabsan karnaa sidaan hore u soo sheegnay. You can save waxaad ku save garaysan kartaa ama aad ku beeqaasan kartaa adigoo computer isticmaalaya both labadaba your time waqtigaaga and money iyo lacagtaada. halkii shaqo fara badan aad qaban lahayd computerku waxa uu kugu qabanayaa shaqadaas faraha badan waqti yar. sidoo kale shaqadii aad lacag fara badan ku bixin lahayd computerku wax uu ku beeqaaminayaa inuu time yar kugu bixiyo ama lacag yar inay kaaga baxdo adigoo computer isticmaalayo. tusaalahaan haddii aad tirahdid waxaan qorayaa warqad book ayaan gacanta ku qorayaa haddaad tirahdid wuxuu kaa qaadanayaa time fara badan inaad ku qorto. sidoo kale inaad isticmaasho qalimaan fara badan iyo warqado ama buug fara badan sida computerka aad u isticmaali karto adigoo computer isticmaalay waqti kooban inaad ku qorato lacag fara badan ay kaaga bixin oo computerkaaga kugu save garaysan yahay xilliga aad rabtana aad daabacan karto waxna aad ka bedelan karto. waxyaabaha aan computerka u isticmaalno searching information inaan xog ku raadino. With the help of computer you can search waxaad ku raadin kartaa computerka information xog on desired topic mawduuc aad damacsantaa ama aad rabto ayaad ku raadin kartaa. With the help of internet adigoo caawimaad ka raadinaya ama adigoo kaashanaya internetka we can find information waxaan heli karnaa xog about ku saabsan various topics mawduucyo kala duwan and get knowledge waxaan heli karnaa aqoon about it ee ku saabsan waxa aan raadinayno. waxaan raadin karnaa anagoo isticmaalayno xog ama aqoon kala duwan. shaqooyin kale aan ku qaban karna waxaa ka mid ah office work xafiis ayaan kaga shaqaysiin karnaa computerka. different types of work shaqooyin kala duwan ama noocyo kala duwan oo shaqooyin ah ayaa can be done ayaan ku qaban karnaa by computer users anagoo isticmaalayna computer. With the help of computer isticmaalka computerka tusaale ahaan creating documents inaan dokumentiyo ku abuurano in a word programka la yiraahdo word. performing inaan ku qabano various mathematical operations inaan xisaabaad fallada ama xisaabo kala duwan inaan ku xalino. in excel programka la yiraahdo excel ee aan dib ka baran doono. creating presentation inaan wax ku soo bandhigno ama ku abuurno presentation ama wax soo bandhigid for meeting ee kulamada etc iyo waxyaabaha la midka ah. hadhoodii waxyaabaha aan baran doono casharadeen dambe waxaa ka mid ah word programka la yiraahdo excel iyo access iyo powerpoint iyo casharo kale muhiim ah aan dib ka baran doono. shaqooyin kale aan ku qaban karno computerka waxaa ka mid ah bank work waxaan kaga shaqayn karnaa bangi. With the help of computer we can do various tasks waxaan ku qaban karnaa computerka shaqooyin kala duwan of the bank ee bankiga such as sida checking the balance inaan ku hubino balancega akoonkaaga lacagta ku taasho. transfer money to others account to another account inaan transfer gareyno ama u gudbino lacag akoon anagoo ka gudbinayno akoon kale inaan u gudbino.
sidoo kaleeto waxaan u isticmaali karnaa use of debit card, credit card and etc. inaan isticmaalno debit card iyo credit card. sidoo kale computerka waxyaabaha aan u isticmaali karna waxaa ka mid ah for online payment, inaan lacag ku bixino computerka anagoo isticmaalayno internet ama online anagoo isticmaalayno. waxyaabaha kale aan u isticmaali karno computerka waxaa ka mid ah online reservation inaan u isticmaalno. if you want, haddii aad doonayso to travel inaad ku safarto somewhere, meel inaad u safarto haddii aad doonayso, you can do online reservation of bus. waxaad iibsan kartaa ama online ahaan aad u jaran kartaa diyaaraddii ama tareenkii ama baskii aad raaciisay lacagtiisa adigoo online ku bixinaya, isla markaana isticmaalaya computer with the help of computer, adigoo isticmaalaya ama oo kaashanaya computerka. shaqooyin kale aan ku qaban karno computerka waxaa ka mid ah online shopping, inaan wax iibsano ama aan shopping soo iibsano ama aan qalab kala duwan iibsano anagoo isticmaalayna online, gaar ahaan computerkeena. online shopping is very popular nowadays. online shopping ah inaad ka dukaamaysato online ama internetka inaad ka dukaamaysato adiga oo gurigaada jooga, maalmahani wax ay noqotay mid caan ah, xitaa Soomaalidu waa ay barteen online ay wax ku iibsadaan. for purchasing various items, adigoo soo iibsanaya waxyaabo kala duwan. with the help of computers, taasina waxa inoo sahlaya waa computerka. we can shop, waxaan soo iibsan karnaa online for various things, shayar kala duwan ayaan soo iibsan karnaa. sidoo kaleeto waxyaabihii computerka uu inoo fududeynayo waxaa ka mid ah ama u isticmaali karno pay electricity bill, inaan ku bixin karno lacagaha biilka, haddii ahaan lahayd korontada, kirada, maxaa la yidhahdaa biilasha iyo waxyaabaha la midka, anagoo isticmaalayno computer waliba internet anagoo isticmaalayno. with the help of computer you can pay, waxaad bixin kartaa your electricity bill, biilka korontada ayaad bixin kartaa online ahaan ayaad ku bixin kartaa. keliya korontada ma ahan, waxyaabaha kala duwan haddii ahaan lahayd kirada, korontada, maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha oo dhan aad bixin kartaa adigoo isticmaalaya computerkaaga, gaar ahaan adigoo isticmaalaya internetka. qodobka toddobaad ee ugu dambeeya aan kusoo koobi doono casharkeena labaad waxa uu noqon doonaa chatting with friends. computerka waxyaabaha uu kuu fududeynaya waxaa ka mid ah inaad kula sheekaysan karto asxaabtaada. you can use, waxaad isticmaali kartaa computer ayaa isticmaali kartaa to interact, si aad ula falgasho ama aad ula sheekaysato with your friends, saaxiibadaha. with the help of computerka ayaad inoo sahlaya arrimahaasi oo dhan. we can send, waxaan diri karnaa an email message, friend email ayaan u diri karnaa, to friends, saaxiib ayaan u diri karnaa. and you can interact, waxaana la falgali kartaa ama aad la hadli kartaa face to face, saaxiibada ayaa weji ka weji ama si toos isku arki kartaan with the video call video adinkoo isticmaalaya. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahantay. wixii aad fahmi weyso fadlan noogu soo hagaaji qaybta commentiga ee pagekeena Ruksan Media. mahadsan. inaad wax badan ka fahantay. wixii aad fahmi weyso fadlan noogu soo hagaaji qaybta commentiga ee pagekeena Ruksan Media.